ciyaartu waa hooygii sportska oo ka barateembo xilli kastaba iyo saacad kastaba inaad ka daawatiin dhanka kubadda cagta ayaa ciyaaro kula ka dhacay dhanka Serie A Italia oo sidan oo inaba caadi ahayn oo loo tartamayo koobka 4 koox mas 3 koox ayaa dhihi karaa waa Inter waa Napoli waa Milano ayaa dhihi karaa sanadkan gacmo isku hayaan ayaa ciyaartii la ciyaaray maalintii Sabtida ahayd ayaa Inter iyo Fiorentina Inter waxa sii wado dhibcooyinka ay dhuminayso sanadkan Inter see Liverpool uga awoodaysay ee championka looga reebay Inter xarka uma raay Inter dib u gurasho ay wada kooxda Simone Inzaghi ma ahan ay Fiorentina bari la gashay goosho waxa u dhashay Inter Milan Dumfries daqiiqada 50 waxa ku hormar laakiinse Fiorentina ayaa goosho kood kala martay Torre ayaa u dhashay goosho koowaad daqiiqada 50 condition wal soo barjeey waxaa la kala horeeyay goolashaadii 5 daqiiqo waxa dhameen 5 daqiiqo ay ku horeysay goosha Fiorentina balse laba dhibac ay san ku qasartay dhigara Inter iyo Simone Inzaghi xalka uma raayo inkasta tartan xoog la kula jiraan kooxda ay jaarkooda yihiin AC Milan ayaa AC Milan waqti ay xilligaas islaameen ma ciyaaraysay isla habeenkaas in guuleysatay ay ku awood saraysay hal iyo eber markii la ciyaaraysay naadiga kubadda cagta ee kala yaaray Milan ayaa ciyaarta dhidhil ku badin balse akhiiran way dantay kaleed way ka gaartay dhikara oo guul bay ka keensatay markuu dhashay xidigeeda heer Jazair Ismail bin Nasir caadi ma ana qday Benoni wuxuu kula qabtay inaba caadi ahayn ay dhikara Arrosaneri sanadkan wuu dharsan yahay wuxuu taagan yahay fi waqtigeeda la jooga in horyaalka koobkay 19 qaado inkasta Inter ay hormartay iga horeysada hal koob oo 19 kala haystaan ayaa labada xidigda labaad oo Urduwa xidigda labaad markii 20 koob wada qaadan bay gaarayaan xidigda labaad ayay gibaham soo gabagabada ciyaarta Milan iyo Cagliari ee sidatan guuleystay Milan ciyaar kale kulul waxay ka dhacday Roma iyo Lazio waa derby Roma waa derbiga caasimadda waa derby Madrid inaba caadi ma ahan Lazio Roma Jose Mourinho iyo Mr Sarri ayaa ciyaar kulul la soo bandhigay balse naadiga kubadda cagta ee Roma ayaa ku awsarey 3 eber markay ku garaaceen iyo xidigeeda Totti oo garoonka ka daawanay oo korka eegay farxad ka muuqatay ayaa xidiga habeenkaas ku guuleystay Thomas Ibrahim ninka Jalsleek soo gaday oo niba caadi ahayn ayaa 2 gool u saxiixay kooxdiisa goolna waxa saxiixay Pellegrini ayay ku soo ekaatay ciyaarta 3 eber Alikra Lazio qasaro kulba ku dhacday oo afka carrada loo galshay حتى هذه الفرشة يرواناق وحاوتي روما يرواناق وحاوتي يعني بالشوشيك وحاوتي لازيو لحظة لكن بروني كليا أو لسه باص أحمد تراي مش نتيجة لبانيا وحكوها ومورينيو ووزير الدفاع تلياني أتوقسي سريع دي لأنك دفاع عادي مع نكاس ووحس حسوسته كلن كل لبدا كل يتبانكي مركي نادي برشلونة إلى عيارين جرون كامبنو مركو مورينيو سدح جدار أو la soo mari karin oo sameeyo Maito weerar ay dhiga difaac walla ninka caadi maan balki Jose Mourinho difaac waa u daayay aniga ninka la dhawa ma kara dhil dhanka difaac ay Juventus idna markay ceeb ka soo raacday garoonkii oo garoonkeeda ay ku dhacday ee kooxda Villarreal garaacday ee dib boorka iskaga jaftay ay ku garaacday kooxda Salernitana ee uu guul saraysay 2 iyo eber ay ku badisay Juve dib bay boorka iskaga jaftay waxa uu kala shay golasha xidigeeda Dybala iyo waxa uu kala shay Mihajlovic ayaa labada gool u kala shay Paulo Dybala markay daqiiqada 5 ay helbo Mihajlovic 9 markay mareysay ayaa dhigana gabi ahaan horyaalka Talyaaniga sanadkan uu kacsan yahay kulanka soo socdana waxa isto hayo waa Inter iyo Juve waa derby Italia ayaa dhigana horyaalka Talyaaniga sanadkan inaba caadi ma laga wato waa shidan yahay hadii la dhanka xamaasada iyo dhanka nooc walba ay waaga hogaaminaysa al-fariiq al-ahmar AC Milan ayaa hogaaminaya wuxuu ku hogaaminayaa 66 dhibac waxa ku xigo الفريق الجنوب نابولي او ايدنا وحالي لحدي سدح انترنا لحدن دبع اي لذا اي هالعيار ودما انتر او كناقصه يوفي او ايدنا مركز الرابع كجرته او دارسن او دب سو نولاتي نابولي ايدنا واتنا كانت لباد بي كجرتا او لحدن اي سدح دبع اي هستا سدح دبع بس لا هوريا ايا خديغا u dhashay dalka Nigeria Victor Osimhen ayaa labada gool buu saxiixay markay kala ahayd daqiiqadooyinka 52 63 ayay Napoli ku awood saraysay 2-1
kooxda Udinese ayay ka badisay waa ka garanaya dhanka Talyaaniga soo gudubna dhanka iyo La Liga Faransa Liga 1 ka gudubna ayaa Paris fadiixooyinkeedu waa socdaan Pochettino ilaa hadda fadiixooyinkiisu way socdaan markay naadiga kubadda cagta AS Monaco ku garaacday 3-0 ay kulan khasaare kulul oo laba isbuuc dhexdooda min 3 loo kala basho ay tahay Pochettino laacibinta maarumeeshide wala loo macaan iskaga taa ku dhilaanay meesha xidigayaal baa jooga ee magaca u dhalin waa Messi waa Neymar waa Mbappe maanta ay koox kasto ama ay naadi kasta inay aragtiinayso inay u ciyaaraan laacibintan balse Paris way ka faa'iideysan tahay wixii tamaaqane goolash waa kala saxiixay Wissam Ben Yedder ayaa u dhashay labada gool 25kii 84 Folland wuxuu dhashay 68 markay mareysay ayaa Paris looga adkaaday 3-0 hadda gudubna dhanka UEFA Cup-ka dhanka oo kaasal Itixaad Ingiriisi marka gudubka Cup-ka Ingiriiska kaasal Itixaad Ingiriisi marka loo gudbo ayaa Liverpool ayaa ka badisay Nottingham Forest 1-0 ciyaartoo la bareeyay garoonka la in gaarayso 90 miya moogi oo rag diyaarada kor qarxa ka dhigay jirtay labada koox oo lagu halaagmay ee dib la dhahay hiraaqiraad baa soo xaadiraya hal dhaafo garoonka loo faadiyay qab ay Liverpool hal yeber ku badisay waatna Mr Klopp iyo xidigihiisa way socdaan goosh waxa uu dhashay Jotan ayaa halka gool u saxiixay markii ay daqiiqada 78 ayaa dhigala Jotan waa xidiga dheer Portuguese oo dalka Portuguese socdo oo ka gool badan Ronaldo season ka lagu jiro 19 gool ayuu leeyahay jaclay Ronaldo 18 gool ayuu leeyahay goolasha ay soo ciyaareen season kan balse Jota caadi ma ahano waayo Liverpool xidiga baa xaga ka soo baxo waxa ay kara Liverpool sanadka way dhibasiranta laakiin dhaxda kaliya ayaa dhiman laakiin hadii la dhaho weerar iyo difaac buu ida ku wadato waa gartay ay Arsenal idna ku badisay Aston Villa ay ka badisay inkastoo ciyaartii hore khasaare soo gaartay oo Liverpool ka badisay balse hadda dib u soo laabatay Arteta iyo kooxdiisa waxay ku soo guuleystay hal yeber waxa la sheegay Saka daqiiqada 30 markii mareysay يعني كراس أرسنال كانت أفراد مدينة يتانتي مدينة وأقول لك عمل يونايتد إذا طلع عملنا توتنهام وقتنا أخيرا إنه حي قراعة ويست هام يونايتد أي وبدأ سيلابا إيبر ما صدح يا هل على صدح يا هل أي ويست هام وقول سريسي ستة وحي قراعة وكوب الاتحاد الإنجليزي كا وحي قراعة صوت هامتون مركي وقول ستة أفر يا هل أي ستة كوبادي سيدنا جالسين waxay ku badisay laba ya Eber waxa kala shay Lukaku iyo Hakim Ziyech Everton wala garaaco Crystal Palace garaacday 4 oo badisay ay dhikaraak koobka waa ciyaar kulul ayaa la sameeyay isku aadkiisa waxa isku soo aadan Chelsea iyo Crystal Palace iyo waxa saayo labada libaax waa City iyo Liverpool war City Liverpool sanadkan inta noo wadiin haddii horyaalka isku heystiin oo ciyaarnii sugayso haddii koobka isku heystiin jamciga kan laga yaabo in finaal isku timaadin ayaa dhigi kara sanadkan City iyo Liverpool ka guul sareeya boo wasahayaan waa Klopp amba Guardiola mid bay raaci doonta guusha dhigi kara labadaba isla qoslimayaan sajalahay bortieriga Chelsea oo ciyaaro Eduardo Mendy ayaa 79 ciyaar ayuu u dheelay Chelsea 43 ciyaarna shabaag nadiif oo ka baxay wow wallahi ragama caadi ahayn waay walla buu jibaar ka badan labo bar ka badan weeyaan waa 79 ayuu dheelay ciyaaro dhamaan 43 kulan garoonkiisa nadiif buu u hay ee dhigi kara guul wacan xidiga Mama Africa Eduardo Mendy ee gabaha buu soo gabagabeeyayna Spain iyo Ingiriis